dagaalka u dhaxeeya Iran, Mareykanka iyo Israa'iil waxa uu noqday mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee dagaalada casriga ah ee dhacayay indhawaale. Sababta ugu weyn oo sidaas u noqdayna maaha in dagaaladu ay yihiin wax ku cusub caalamka gaar ahaanna. Tan iyo intii dagaalkii qawaayid dunidu uu dhamaaday laakiinse macnaheeda ayaa ah in ay dhacday hoga tusaaleyn aad u xoogan iyo waliba fahan darro aad ballaaran oo laga haystay wadanka Iran taasoo kaliya aysan hayn dadka Soomaalida dadka aan sida wacan Iran iyo taariikhdeeda u aqoon laakiinse Israa'iil iyo Mareykanka laftoodu ay ku khatalmeen dhinaca kalena wadamada Carabta ayaa maraya mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaa ee dhinaca dagaalka iyo waliba sida ay u wajihi doonaan xaqiiqooyinka dagaalka ku saleysan oo ay ku jirto xataa suurtagalnimo kacdoona aad u xoogan oo la filayo iyo waliba dhibaatooyin la yaab leh iyo kuwa siyaasadeed oo degdega iyo kuwa amni isbedelkooda intaba barnaamijkeena warwareyn ayaad ku ogaan doontaan faaqidaad iyo sidoo kale warbixino dhinaca sirdoonka oo ballaaran oo soo taraya oo ku aadan in ay wali sii socoto arrimaha waaweyn wadamada caalamiga carabiga hadii ay hal arin ilaa iyo hadeerto ay sameynayaan qaarkood waxa lagu tilmaamay inay tahay isxakamaynta inaysan dagaalka qayb ka noqonin oo kamid ahayd istaraatiijiyadaha uu raadinayay Netanyahu iyo madaxweyne Donald Trump labadaba macadka daraasaadka ee loo yaqaan Center for International Policy Research ayaa sheegay in wadamada khaliijku hadii ay jirto hal arin oo ilaa hadeerto ku tuntunsadeen ay tahay oo kaliya inay xaqiijiyaan inaysan dagaalka si buuxda boqolkiiba qayb uga noqonin laakiin marka laga hadlayo ka qayb qaadashada dagaalka in ay qayb ka yihiin way caddahay sababtoo ah wadamadooda ayaa loo isticmaalaya salgida weerar iyo weerar celiska lagaga hayo Iran ayaa waraagta kasoo hujuumista dalalkeeda ee wadamadaasi in ay ka dhigan tahay in ay qayb ka yihiin xasarad sharciga caalamiga ah ee charterka qaramada midoobay iyo marka la fiiriyo shuruucda kale iyo hay'adaha waaweyn sida International Crisis Group iyo waliba barnaamijyada macadada daraasadaha sida Center for International Policy Research iyo sidoo kale macadka daraasaadka ugu weyn ee dunida ee nabadda waxay aaminsan yihiin hadii dal kale uu u soo qariyo cadawgiisa isla markaana lagaga soo duulo wadankaasi isagoo og dawladdu inay qayb ka tahay xasaradaasi sida la jigeedna Iran waxay u leedahay kansho iyo gacan banaani ay kaga qayb qaadato inay wadamadaasi iska waariso oo ka qayb qaadato ayaa la yiri inay u aragto inay ka qayb yihiin dagaalka wadamada ilaa iyo hadeerta waxay u arkaan in muhiimadda ugu weyn ayagu maanta ay tahay in hawadoodii loo furo dhaqaalahooda dib loogu soo celiyo gabi ahaanna wada hadaladu ay noqdaan kuwa meel mara laakiinse taasi ku imaamayso si iska fudud waxaana ku imaanaysaa in marka oreysa la helo istaraatiijiyado waaweyn iyo waliba xalal ka duwan kuwaas taa waxaa sii dheer in ra'yi caamka wadamada caalamiga carabi balaarug aad xoogan uu ka jiray wadamada carabta markaad fiiriso dadku siyaasad kama hadlaan gaar ahaan dadka wadamadaasi u dhashay iyo kuwa kale ku dhaqan waa dad kaliya oo ku mashquulsan noloshooda maalmahooda fasaxiyada meelaha inay soo marmaraan in ay kii ganacsanaya uu ganacsado kii kale meel ka shaqeeya xoogaa saacada inuu soo shaqeeyo habeenkiina hawo la iska qaato oo la wareego xeebaha iyo deegaanada kale isla markaana noloshooda dhan intaas ay ku koobanta laakiinse marka la fiiriyo dagaalkan ayaa isbedel aad u xoogan oo degdega keenay waxaana yimid isweydiino terabeela waxaa yimid cadaadisyo waliba bilowday oo ay ka mid ka tahay in la tabin wararka ku aadan khasaaraha Iran ee geysanayso wadamada golaha iskaashiga ee khaliijka GCC-ga oo kala ah Saudi Arabia Imaaraadka Carabta Kuwait Oman Bahrain iyo Qatar ayaa muddo dheer loo arkayay in ay yihiin deegaano si nabad leh oo nool oo himilooyin fog leh laakiin ma jirto taasi marka laga hadlayo qaabka dagaalkan u bedelay si kastaba haatee dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil kula jiraan Iran ayaa ruuxay sawirkaasi kadib markii gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay haleeleen salgida Mareykanka ee gobolka ayna sidoo kale ay burburiyeen kaabayaashii rayidka iyo qaybo tamarta gobolka ah dawladaha khaliijka waxay si degdeg ah u bilaabeen inay dib u soo celiyaan nolosha caadiga ah saalahan ay isku dayeen waxaana kamid ah dawladda Qatar waxay joojisay nidaamkii shaqada ee habka aan tooska ahayn waxayna dib u furtay qolalkii waxbarashada ee jaamacadaha iyadoo sheegtay inuu yaraaday weeraradu laakiinse taasi ma aha damaanad qaad dadka wadamadaas ku dhaqan ayaa hadeerta dareemaya in la joogo waqtigii dawladda su'aalo la weydiin lahaa lana iska day lahaa in awoodda boqortooyooyinka laga boqo oo aan tubo loo dhihin qaar kamid ah dad ayaa soo fakanaya Qatar mucaarad ka tirsan ayaa hadlaya sidoo kale Sacuudiga falanqaayashooda ayaa dhiirinaya isku taga Imaaraadka Carabta maalqabeennadooda ayaa warar shubaya waxayna isweydiinayaan cidda dagaalkan bilowday iyo ujeedooyinka lagu bilaabay iyo waliba ujeedooyinka laga lahaa kaliya ma waxay ku kooban tahay Iran ayaa hubka nukleerka laga celina
mise way ka salweyn tahay taas oo waxaa jira qorshe ka balaaran oo lagu dhibaateynayo dhaqaalaha wadamadan lagu wiiqayo kalsoonida shacabka ay ku qabeen nidaamkooda iyo waliba in ay dunida wax saameyn ay ku leeyihiin haddii sida ay wadamada carabtu sheeganayaan loo akhriyo arinta lana akhriyo isla qodobka ficilka madaxweynaha dalka Mareykanka oo ay leeyihiin anagu geed dheer iyo geed gaaban ayaan u fuulay in aanu joojino dagaalkan in uusan dhicin taas macnaheedu waxa weeye waana la dhageysan waayeen waxay ka dhigan tahay qiimo agtooda kama lihin kuwana dhageysan waayay طبعا Donald Trump iyo Mareykanka haddana waxa imaanaya isweydiimo oo hadii lagu dhageysan waayay miyaysan jirin wax ficilo adigu ku furan inaad qaado sida inaad diido in wadamadaada wax weerar laga geysto sida inaad ka baxdo heshiisyada dhinaca military aad leedahay sida kale in aad gabi ahaanba aad ka hadasho oo u hadasho dadkaaga iyo mustaqbalka fog ee soo jeejeeda Japan oo hub nuclear inta lagu dhuftay sanadkii 1945 magaalooyinka Nagasaki iyo Hiroshima la burburiyay kadib boqortooyadoodii laga taqalusay maata caanana laga dhigay oo laga saxay xataa inaysan military awood aysan samaysan dhaqaalaheedana lagu xidhay tan reer galbeedka siyaasadeedana xataa lagu dabray isla saas oo kale ayaa maanta ka hadashay isla markaana si weyn u dooraysa dib u eegis iyo dib u furis awood military iyo sidoo kale in ay ballaariso hanaankeeda dhinaca difaaca oo ka madax banaan Mareykanka 50,000 ee askari Mareykanka joogana waxay ku leedahay waaba hadur Alex Franca oo khabiir ka tirsan cadka bariga dhexe loo yaqaan Middle East Institute ee Washington ayaa yiri weerarada Iran lama joojin karo sababta la xiriira juqraafi ahaan iyo isku dhawaansho dalalka wadamadani waxay isku arkaan boos nugul iyagoo noqday dalal ku yaala safka hore ee dagaal aysan qayb ka ahayn haddana ay ku bixiyeen qarash dhaqaale oo aad u culus waxa ka daran qarashka ay ku bixiyeen ka ay ku lumiyeen ee dagaalku ka joojiyay qulqulka dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha caadiga ahayd intaas wuxuu ku daray in xataa hadii agabka iyo hantida oo dhan loo weeciyo dhanka difaaca waxaan aragno ayaa in dalalkani ay wali u nugul yihiin weerarada trafelka ee Iran maalgashigooda baaxadda leh ee lagu qiyaasay bilaayiinta dollar ayaana hadda halis ugu jira khatarta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska gaar ahaan diyaaradda cawaandiga ee boqorka dagaalka noqotay shahiid qiimahoodu wuu jaban yahay khasaaraheeduna wuu badan yahay isla markaana wuxuu noqon karaa mid kamid ah kuwa ugu waaweyn isweydiinta fataanka wuxuu inta ku daray in dheelitir la'aanta ay horseedayso kharashka caymiska oo kor u kaca silsiladaha saadka oo noqda kuwa aad u cakiran waxayna ku kicin kartaa shirkadaha inay dib u qiimeeyaan heerka ay halis ugu jiraan gaar ahaan gobolka Khaliijka ilaalinta madax banaanida ayaa ahayd su'aalaha ugu waaweyn ee wadamadan isweydiinayay iyadoo dalalka Khaliijku ay raadinayeen inay dheelitiraan xiriirka kala dhaxeeya Mareykanka iyo Iran mid kamid ah natiijooyinka degdega ah waa dib u qaabaynta dhanka amniga oo lala sameynayo Washington iyo sida ay sheegtay Ibtisam al-Khatbi oo ah gudoomiyaha xarunta siyaasadda ee Imaaraadka Carabta ee Emirates Policy Center waxay sheegtay in dalalka Khaliijka loo riixayo dhanka isku soo dhawaansho weyn oo ay la yeeshaan Mareykanka iyo si degan oo shaqo ku dhisan ay ula falgalaan Israa'iil taasoo ka dhalatay tixgelinta amniga ee xilliga la joogo balse waxay ku nuuxnuuxsatay in iskaashiga uu yahay mid ku dhisan danta jirta ee usan hayn mid fakar ku dhisan taas laakiinse waxa beeninaya in Israa'iil ay gabdhaha ku raaxaysanayso dhibkooda ee aysan waxba ka celinaynin fataka laakiin wuxuu ka digayaa in xoojinta xiriirka ka dhanka amniga uusan hayn mid aan xad lahayn gaar ahaan marka loo eego inta ay leegtahay diyaar garowga Mareykanka ee difaaca dalalka Khaliijka wuxuu sheegay in dawladaha Khaliijku ay uga digeen Washington cawaaqib ka dhalan kara xiisada kordhinta iyo sidoo kale muddo dheer ka hor inta uusan dagaalku qarxin balse ay soo laabteen iyagoo dareemayeen niyad jab aad u xooggan kadib markii Trump uu dhegaha ka fariistay Trump wuxuu inta badan dagaalka u galay Netanyahu isagoo iska indhatiraya dalalka Khaliijka kuwaas oo garwaaqsaday inaysan weligood heli loolana dhaqmin si la mid ah kan Israa'iil oo kale taasi waa mid adag Iran dhakeeda waxay cadaadis ku saaraysaa dalalka Khaliijka si ay ugu riixdo inay ku dhawaaqaan dhexdhexaadnimo sida uu sheegay fataanka kaasoo sharaxaya in wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi uu muujiyay carada uu ka qabo in mid kamid ah dalalka Khaliijka uusan cambaareen weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran taasoo ahayd ayuu mid xun oo kale waxaa laga baqayaa hadaba tan inay keento caro gudaha gufaacoon iyo isbedel degdeg waxaana laga baqayaa sidoo kale inay tani dhaliso inay dad codkara u soo baxaan wadamada Khaliijka kuwaasoo kolka ugu horeysay isweydiiyay in aysan wax noqon karin status quo ama inaysan noqon doonin arintu jug meeshaadii joog oo wadamada la bedelo loona raadiyo dad aqoon iyo cilmi leh gaar ahaan dad leh go'aan qaadasho ficila decisive